dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay muddooyinkii dambe ku tiirsanayeen la imaanshaha hal abuur shaqo oo miro dhal ah. Farxaan Maxamuud Axmed oo kamid ah dhalinyarada Qardho ayaa la yimid hal abuur sida warkan ku dhameystiray wariyaheena Muxuudiin Hirad. Farax Maxamuud Axmed waa wiil dhalinyaro oo wax ku bartay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Qardho uga baxay dugsiga sare waxaana uu hadda jaamacadda uu ka dhigtaa Boorame. Farax waxa uu keenay qalabkii ugu dambeeyay oo casri ah oo mashiin ah kaasoo ah difaaca moobilkaaga. Farax barnaamijkan uu keenay magaalada Qardho ayaa ka yaabiyay dad badan waxaana uu samaynayaa moobilkaaga oo gelinayo qafis yar isla markaana muddo yar ku jiraya waxaana uu ku garaacayaa moobilkaaga dismiss isla markaana uu ku xoqayo isagoo moobilkaaga uusan marna ka jabaynin wax xoqnina uusan yeelanaynin. barnaamijkan ayaa ahaa kii ugu fiicnaa oo nin dhalinyaro ay ku soo kordhiyo magaalada Qardho. Farax Maxamuud Axmed wuxuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay xoojiyaan farsamada gacanta si ay horumar u gaaraan dalkana wax ugu soo kordhiyaan. Bismillahirrahmanirrahiim waa maasantahay waxa ay dhalinyaro ay mataqaanaa reer Qardhooda secondary kaga baxay jaamacad baa waxa ka dhigtaa dalka Boorama ka dhigtaa Boorama waxa ku soo aragnay nashqadaha dhawaan beena waxay soo galeen dalka soo galeen farsamada tan mashiinka dhawaan buu dalka soo galay marka waqooyi ku soo aragnay waxa mataqaanaa nala gudboonaatayna mataqaanaa Puntland keeno oo waliba gaar ahaan magaaladeena Qardho aan keeno mashiinkan oo mataqaanaa sida looga maarmo waxaan looga maarmayaa mataqaanaa in mataqaanaa mobilku si fudud u kaaga jabo ama diilin ama dilac ka galo mobilku ku adkeynaysaa kaana jabi maayo mobilku sida aan sheegay dhalinyarada dalka wax ka barataanahay dhalinyarada waxa ku dhiirigelinayaa inay mataqaanaa farsamooyinka gacanta aad u xoojiyaan oo mataqaanaa sidii mataqaanaa ay ugu fikirayaan mataqaanaa inay tahriibaan iyo tahriibta iyo ka waantooban oo hal abuur dalka la yimaadeen. Maxamuud Axmed baa la dhahaa aniga in dhalinyaro ayo kale oo Saalax Siciid Saalax dhoo baabaala kan keenay isagii hadda iga maqan yahay labadaydaas dalka keenay oo mataqaanaa magaalada Qardho keenay ما شاء الله استعمالك بالشدة النية وبالشدة ولي لما قبض مالك لكن عاد بقى متقنا عدر عند عدد كيف هنسيني وكذا دعني عاد بقى متقنا شلا يمانت شلا بابلوني جعدي مدرب بابلوني جعدي يسبتدي حد يمانتي حد باكو شقيني ما شاء الله دد كان دي لقى دعية وفهميان ومتقنا ما هو اللي قلت جابيه عاد بفهميان متقنا دد قيمة يرنا باكو قلنا هلك أنكو سوارنا أنا قيمة تدور دور يسدد دور يلو بالكيناي هلك دد رقيس باقدرني تدور دور باقدر واحد قدر نافر دور باقدر waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dhammaan baa dadkii iyagu ka samaystay moobilada oo anigu aan kamid ahaa. barnaamijkan waa barnaamij aad u fiican oo u baahnaa in dadka maganaysa maalmo moobiladu ka dhacayaan shaashaduhu jabayaan waa arrin casri oo la keenay anigu waa ka samaystay waa lagu tijaabinayaa arrintaas waxay u baahan tahay ninka dhalinyarada shaqo cusub buu inoo keenay in lagu dhiirigeliyo oo arrintaas mataqaan cid waliba oo bahalkii qiimuhu wax badan ma waa $4 arrintaas marka anagu soo dhaweyn wanaagsan buu naga helay idina wax la saas kale soo dhaweysaan. Muxuudiin Hirad Kaatun telefishinka SBS magaalada Qardho.